Salaamullaahi calaykum. Tobanka waddan ee u sigaar cabista badan leh adduunka. Sigaarku waa maado ka kooban maandooriye lagu soo laalaabay waraaqo caafimaadkana u xun, sida laga soo xigtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO. Warbixin ay soo saartay kuna sheegtay in ka badan 8 milyan oo qof sanadkii u dhintaan sigaarka dartii, iyada oo xitaa shirkadaha soo sameeya ay jaldigiisa ku soo hardhaan waxa uu u diran yahay caafimaadka. Waxaynu isweydiinaa, waa ay waddamada ugu sigaar cabista badan adduunka? Sidaynu isu weydiino, maalintii imisa midh ayaa la cabaa? Fiidiyogan ayaan idinkula wadaagi doonaa 10 waddan ee ugu sigaar cabista badan leh adduunka, innaga oo ka bilaabi doonaa 10 ilaa 1. Lambar 10. Montenegro. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,154 xabbo oo sigaar ah. Sidoo kale, waxaa jira sharciyo ka mamnuucaya inuu qofku ka cabo meelaha caamka ah. 9. Belarusia. Waxa uu sanadkii qofku cabaa Belarusia 2,266 xabbo oo sigaar ah. Warshadaha sigaarka sameeya waddanka ku yaala ayaa 2013 soo saaray tiradii ugu badneyd abid oo ahayd 33 bilyan qardaas. Ay sidaa kaga mid noqotay waddamada ugu sigaar cabista badan adduunka. 8. Bosnia. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,278 midh oo sigaar ah. Sharciga waddanka ayaa u fasaxaya qofka inuu ku cabbi karo meesha uu rabo. 7. Slovenia. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,369 xabbo. Slovenia ayaa u fasaxday in lagu cabbi karo meel kasta sida shaqada iyo goobaha kale caamka ahba. 6. Ukraine. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,401 midh oo sigaar ah. Sharciga waddanka ayaa ka digaya in lagu cabo goobaha waxbarashada, maqaaxiyaha iyo laamaha dowladaba. 5. Moldova. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,479 xabbo oo sigaar ah. Sidoo kale, Moldova iyana waxaa ka mamnuuc ah in lagu cabo goobaha ay dadweynuhu ku kulmaan. 4. Russia. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,789 xabbo. Russia waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay waddamo yar oo fasaxay sigaarka in lagu cabo meel kasta, balse go'aan dambe oo la soo saaray ayaa laga mamnuucay in lagu cabo dhakhtarada, maqaaxiyaha iyo goobaha kale ee dadweynuhu ku kulmaanba. 3. Greece. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,795 midh oo sigaar ah, waxayna ka mid tahay waddamada ugu sigaar cabista badan Yurub. Waxaana jiray isku dayo badan oo lagu joojinayo cabista sigaarka, balse may suurtagelin. Bulgaria. Waddankan waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,810 xabbo oo sigaar ah, waxaana ka mamnuuc ah in lagu cabo goobaha caamka ah, iyadoo maamulka waddankaasi ay u sameeyeen goobo u gaar ah cabista sigaarka. 1. Serbia. Waxa uu qofku cabaa sanadkii 2,869 midh oo sigaar ah. Mar kale, waddamada Balqaanka ah ayaa noqday kuwa ugu sigaar cabista badan mar kasta iyo meel kastaba. Serbia waxaa jira sharciyo ka mamnuucaya in lagu cabo goobaha bulshadu isugu timaado. Qofkii xeerka jabiyana uu ku mutaysan doono ganaax.